Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada dunida janna. Barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa dad moodkii ama geerida wax yar kaga badbaaday ama sigtay. Waxaan jeclaystay in aan isla daawano muuqaaladan la yaabka leh oo ay duubtay CC kaamirada oo aanan rumaysan lahayn haddii aysan kaamiradu aysan duubin. Haddaba saaxiibayaal, aynu bilaabano muuqaalkeena maanta. ninkan isagoo socda wadada dhinaceeda ayaa hal mar waxa ku soo booday baabuur, balse wuu ka booday oo uu ka leexday, waxaana u dhaxeeyay isaga iyo baabuurka tiir kaliya toole. Waxa badbaadiyay Allah, ka sokow waxa sabab u ahaa tiirkaas oo uu ku badbaaday. aynu isla eegno baabuurkan isagoo xawaare sare ku socda ayaa hal mar wuxuu bareeg ku qabtay wadada dhexdeeda, isagoo jiiri gaadhay oo sigay nin laami dhexdeeda taagan oo baabuurka hagaajinaya ma laha. jidkan oo ka dhacday dhacdada la yaab leh oo ay duubtay CC kaamirada. waxaa meesha isku jiiray saddex baabuur oo midna baaskiil yahay, labana ay baabuur yihiin, balse way ka badbaadeen Ilaahay amarkii oo qofna waxba kuma noqon sida ay u muuqato. afartan nin iyagoo mootada kicinaya oo hagaajinaya ayaa hal mar waxaa soo dulmarayba oo soo jiiray nin iyo mootadii. sida ay u muuqatana ay tahay shil, balse waxba kuma uusan noqon, wuu ka badbaaday. ninkani isagoo si xawaarsan ugu socda duleedka laamiga ayaa hal mar si lama filaan ah u dhacay, balse wuxuu ka badbaaday meel halis ah. wadadani waxaa halis ku galay saddex shay, laba baabuur iyo qof dumar ah. sida aad ku aragtaan muuqaalkan, gabadhii way ka badbaaday, labada kale ma sheegi karo. laakiin gabadhani iyadoo fadhida xafiiska ayaa hal mar waxa dhismeeda ku soo burburiyay baabuur isagoo ku socda si xawaareysan oo awood leh. haddaba barnaamijkeena maanta intaas ayuu ku saabsan yahay. haddii aad doonaysid inaan kusoo diyaarino barnaamijkan part 2giisa, fadlan muuqaalkan like gare si aynu u ogaano inta qof ay doonaysa muuqaalkan qaybtiisa labaad. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkan, fadlan subscribe saar. mahadsanid. waadna ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. muuqaalka xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.